من قاتل يرى الناس الخلق الذي كأنه تلقاه. الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على زين الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaanu kasoo hadlaynay doodii u dhexeysay ahlulxaqa iyo ahlulbaadilka, doodaasoo dhex martay asheekh axmed bin idriis oo ahaa sheekh ka mid ah culummada diinteena islaamka abtirsigeedu oo maro haddii aan nahay dadka soomaaliyeed. doodaas waxay dhacdaa dhahnay 192 sano ka hor ayay dhacday. waxaana kasoo baxnay qeybtii ugu horeysay ama qeybtii koowaad. haddana waxaan guda gelaynaa qeybtii labaad oo insha allah noqon doonto qeybtii ugu dambeysay. dooddu waxay noo mareysay in ninka la yidhaahdo naasir oo bidciga ah oo sheekha weydiiyey ama sheekha ku tilmaamay inuu yahay qof tafsiirka ku fasiro wax aan carabiga waafaqsaneen. arrintaas oo ah arrin bedelaad kitaabka ilaahay la bedelahayo. sheekh ayaa marka sidan ku jawaabay. sheekhii ayaa yidhi: xaasha lilaah, ilaahay baa xumaan oo dhan ka dheer. mana bannaano qur-aanka in lagu fasiro carabiyada wax khilaafsan. waa kuwaan tafsiiryaalkeennii waa qoran yihiin. aayadaha waxa aanu ku fasirnay dadka waa wada garanayaan. annagana qur-aanka waxaan ku fasirnaa carabiyada si ku cad oo muuqata. waxaana annagu aaminsannahay in tafsiir luuqadda carabiga waafaqsan lagama maarmaan uu yahay. suurtagalne ma ahan qur-aanka inuu dhex galo qof aan aqoon u lahayn carabiyada. qofkii sheegtaa qur-aanka inuu si qarsoon u fahmay oo ku fasira sida muuqata si khilaafsan, waxaan aaminsannahay inuu yahay beenaale. lana mid ah qof yidhi guriga ayaan galay, albaabkiina waa iga xiran yahay. mana inkirayno in ilaah qur-aanka uga furi karo macnayaal qarsoon dadka owliyadiisa ah. ninkii bidciga ahaa ayaa yidhi: labada ragco oo aad tukataan adiga iyo xertaada, aadaanka salaada maqrib iyo aqimka inta u dhexeyso, diinta ma ka mid tahay? halkeena ku soo aroortay? sheekhu wuxuu yidhi: labadaas ragco nabiga sallallahu calayhi wasallam ayay ka sugnaatay. asagaa tuka jiray, ummadiisana amray. dad tukanayo intuu arkay ayuuna ku yidhi: waa ku saxan tihiine sii wada. waxayna ka mid tahay sunnooyinka nabiga sallallahu calayhi wasallam laga soo guuriyey oo axaadiista saxiixa ah ku sugnaatay. haddii aad aragtay dadkii oo tukan waayey oo ka tegay, ha ku raacin dadka ee sunnada saxda ah raac. annagu ma odhanayno labadaas ragco waa waajib, laakiin waa sunno. axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam ayayna ku soo aroortay. wuxuu yidhi ninkii wahaabiga ahaa: sheekh axmedow, dadka xertaada ah munkar fara badan ayay sameeyaan. qaarkood waa tuugo, waxbay xadaan. qaar waxbay xantaan. qaar waxbay caayaan. qaar waxbay aflagaadeeyaan. dadkaadu akhlaaq ma leh. markaas ayaa sheekh axmed wuxuu ku yidhi: aniga dadka xertayda ah miyaa khayr badan, mise asxaabta nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa khayr badan? asxaabta nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa khayr badan. qarniyaalka dhanne ayagaa ugu khayr badan, ayuu yidhi ninkii. sheekh axmed wuxuu yidhi: ma akhrisay qur-aanka kariimka ah? haa ayuu ku jawaabay. ma akhrisay aayadan qur-aanka ah: wazaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa 100 jalda. ninka sinaystay iyo gabarta sinaysatay 100 mar hala karbaasho.
ما أخرسي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما توغا يتوغدا قعمها كجرا ما أخرسي ومن يعصي الله ورسوله قفكي إله إيو رسول كيسا كعاسيو ما أخرسي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل si baadil ah xoolihiina ha isaga cunina iyo aayadaha la midka ah ma akhrisay aayadaha qamrada ka hadlaya haa waan akhriyay ayuu yidhi aayadahaasi sababo ay kusoo degeen soo ma jirin soo ma ahayn dad xilligaas joogay intay qamro cabeen aayado kusoo degeen intay wax xadeen gacmaha laga gooyay soo ma jirin wuxuu yidhi haa nebiyaasha bis ayaa qalad laga dhowray ee dadka kale qalad waa geli karaan oo xilligii nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa dad dembi galeen marka ma waxaad leedahay xilligii nebiga sallallahu calayhi wasallam qalad ma dhici jirin hadda yaa lagu arkin qalad xertaada madaxa ayuu raariciyay ninkii bidciga ahaa markaas ayuu yidhi sheekh axmedow dadka waxbay ka sheegaan adiga iyo xertaada sheekh axmed ayaa yidhi dadka waxa ay naga sheegayaan adiga miyaa nagu arkay mise qof lagu kalsoon yahay oo markhaati ah ayaad u haysaa markaas ayuu dhahay aniga idinkuma arkin sheekh axmed ayaa yidhi shaydaanku qofka wuxuu qalbigiisa ku yiraahdaa qofkaas inuu xun yahay aamin hadhowne haddii lagu weydiiyo waxaa dhahdaa dadkaa sidaas lahaa shaydaan ayaa kugu qaraabtay oo kaa shaqaystay markaas baa hadalkan sidaas u tiri ugu dambeyn duqii magaalada doodu ka dhacday ama amiirkii wuxuu usoo laabtay asiga iyo ragga ugu dhow 3 ka mid ah sheekh axmed cudurdaar ayayna ka baxsheen aadaab la-aantii ay ragga bidcada ah ula dhaqmeen oo ay isugu dayeen inay la doodaan sheekha oo dhanka cilmiga ka ahaa badweyn kamana suulin inuu u dhimrinayo sheekha sheekh axmed ayaa ku dhahay kuma habboono inaad addeecdo oo aad ka dhigato saaxiib hoose qof aan cilmiga ka garanaynin magaciisa ma ahane wax kale nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maa min khaliifatin aw amiirin ilaa walahu bitaanatu khayrin ta'muruhu bilkhayri wataxusuhu calayh wa bitaanatu sharin ta'muruhu bilshari wataxusuhu calayh وعلامة بطانة الخير أن يهدي إلى أميره محاسن الناس ويتقرب إليه بما ينفعه عند الله وعلامة بطانة الشر أن ينقل إلى أميره معايب الناس ويتتبع عورات الناس مجرو قف خليف أما أمير هدي أو جرانه وحو ليهي لبس صاحب هوسه أما wadaay khayreysan oo kheyrka iyo wanaagga farayo oo ku boorinayo amiirkaas iyo wadaay xume oo sharta iyo waxa xun farayo amiirka oo ku boorinayo astaanta lagu garto saaxiibka ama wadaayga fiican waa inuu amiirka wanaagga dadka tuso amiirkana ugu dhowaado wax ilaah agtiisa ka anfaci doono astaanta wadaayga xunne waa inuu amiirka u soo gudbiyo ceebaha dadka oona raaraaco dadka cowradooda doodii oo gaaban halkaas ayaan ku soo gunaanadaynaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal insha allah kasii ku sameynaa doodaas oo ahayd dood aada iyo aada u kulul iyada oo meelo badan taabanaysay inkastoo aan soo gaabinay inta hadda aan sheegnay waxyaabo badan oo hadda taagan ayaanu arkaynaa sida in dadka lagu gaalnimo xukmiyo oo dooda bilaawgeedii ahayd iyo in diinta si fudud iyadoo aan la baran diintii looga jawaabo wax kastoo lagu fududaado
oo markaasna wax qalad ah la jawaabo. waxyaaba badan ayaa doodis laga dheehan karaa. waxaa ugu weyn laakiin ugu daran dadka muslimiinta in gaalo loo yaqaano, sida meesha ku cad oo dooda ku cad, oo la aaminsan yahay in dadku nabi maxamed kabacdi ayba gaaloobeen. maxamed bin abdulwahaab oo gaalnimadii ka saaray markuu asiga soo baxay, oo dadkii gaalnimada ka saaray, oo dadkii diintii saxda ahaa dib ugu soo celiyey ayaa meesha ka cad. halka taariikhda oo la wada yaqaanan ay ku caddahay in maxamed cabdiwahaab uu ahaa nin safaax ah oo dhiigyacab ah oo muslimiin badan laayay, oo ka qayb qaatay dumintii dowladdii ugu dambeysay islaamka iyo muslimiinta oo al-cuthmaaniya la dhihi jiray, oo ahayd dowlad aad iyo aad u xoog badan. ayuu ka qayb qaatay asiga u shaqeynayo sirdoonka wadamada reer galbeedka, weliba ingiriiska. marka haddeertaan meelaha dadka iyo ururada dhiigacabyaasha ah oo magaca islaamka ku qaraabanahayaan, oo dadka islaamka markasta qarxinahayaan, dadka muslimiinta ah waxay ku abtirsanahayaan ninkaas maxamed cabdiwahaab la yidhaahdo, oo 200 sano iyo ka hor caqiidadii soo bilaabatay ilaa haddana socoto. insha allah ilaahayna waa suuli doona. haddeertaane astaamo waxaa jira dee caddeynahayaan in ay dhammaanahayaan dadkaas waqtigooda oo dhammaaday. insha allah wadamada islaamkana kheyr iyo barwaaqo ay gaari doonaan. wadankeena insha allah ilaahay markasta haloo baryo oo ilaahay ha laga qabsan naxariistiisa, in ilaahay dowlad caadila oo na siiyo, dowladda la dagaalanta manhajkan. dowladdii siyaad barre ilaahay ha u naxariistay ayaa aad iyo aad madhabkan u dagaalami jirtay, oo kitaabadiisa iyo wax kasta manci jirtay oo diidi jirtay. markii dowladdii ay dhacdayna ayay nimankan wadankii qabsadeen, oo iyaga oo wadamo kale caraba kaashanahayaan. sidaas ayaa marka kitaabadii wixii manhajkooda ku qornaaya wadankii loo soo geliyay, ilaa haddana meel kasta u yaallaa. marka dowladda la dagaalanta manhajkaas oo wadanka burburiyey, oo dadkii diintii ka leexiyey, oo dadkii gaalnimo dadka u yaqaana, manhajka u yaqaana dadka gaalnimo, dadka dhan 4 qof oo aaminsan maahane. dowladda la dagaalanta ilahay inuu na siiyo, markaas ilaahay laga rajeeyo, oo ciidankii militarigii dhista, oo dadka cadaalad ku maamusha, oo saaxiibkeedii cadowgeeda kala aqoonsata. insha allah waan la heli doonaa. naxariista ilaahay laga quusanay. markaas wadanka loo duceeyo, wadamada islaamka dhan ha loo duceeyo, markaas inuu ilaahay nabad ka dhigo, oo dowlado fiican ilaahay ka soo saaro, oo gaalada iyo shirqoladooda fahansan. insha allah ilaahay markaas hanaga dhigo kuwii xaqa caddeeya, oo xaqa markasta ku taagan, oo baadilka iyo diinta haddeertaan 200 sano jirta kasoo horjeeda oo aan aaminsanin. ilaahay naga dhigo. insha allah markastana ilaahay inuu diinta islaamka iyo ehelkeeda oo xoojiyo hala duceeyo, markaas ilaahay laga baryo. insha allah halkaas ayaan ku sameynaa doodeeni. billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.